بسم الله sida laga warinhayo tirmadi xikmadu waa baadi ka maqan qofka muslimka ah lana doonayo inuu ka faa'iideysto meel kasta uu ka helo marka maanta waxaan doonayaa inaan idin la wadaago waxaan u maleeyay inay xikmad tahay oo u baahan dadka iyagu inay ogaadaan arrintan waxay ku saabsan tahay kobcinta iyo sare u qaadida amniga maxaa yeelay shalay meel aan ka qayb galay oo carwo ahayd ayaa booliiska degmada waxay soo bandhigeen touch the track barnaamijyo badan oo ayagu ay qabtaan iyo waxyaalo badan runtii aad iyo cajibiyay aan doonaya in dadka aan la wadaago marka arrintaasina waxay tahay mobile command center wax la yiraahdo iyo sida ay u isticmaalaan qalab kale oo drones ah oo unmanned vehicles ah sida uu qayb uga qaato in dembi baaris iyo wixii la mid ah taasoo aan isiri laga yaabi lahaa in meelaha qaarkood dhulkii ay ka timid inay ku fiicnaan lahayd dadkuna saas baan doonayaa inaan ula sheer garayo marka arrinta intaana u guda gelin runtii waxaan doonayaa marka hore doorka booliiska uu ka qaato sugidda ammaanka oo aan isla wada ognahay in aanu dib u milicsano markay dhacdo oo dhaawac ama geeri ilaa maxaan ku xubun ay dhacaan ama car accident ha noqdo ama maxaan ku radaa xabadi ha dhacdo ama argagixiso meel ha weerarto wax haday dhacaanba runtii talaabada ugu horeysa ee ciidanka ammaanka ay inay u soo jawaabaan ay noqonayso waxay noqonaysaa marka hore inay iyagu arkeen ama la ogeysiiyay oo la wacay oo number emergency ah oo jira oo degmooyinka ama wadamadu systemku uu isticmaalo runtii waxaan aad ugu faraxsanahay General Zakiya oo mar dhaxdaas hadlaysay baan maqlayay oo ka hadlaysay markaa 991 number cusub oo Muqdisho hadda laga isticmaalo oo si dadku ay ugu report garayaan waxyaalaha ay arkaan dhacdooyinka ama accident iyo wixii la mid ahba marka numberadaas oo kale ayaa deegaanka hadda anigu aan joogno ka shaqeeya 911 baa shaqeeya marka talaabada ugu horeysa ee qofka markaa agtaa meesha joogay wax dambiga ka dhacayeen markuu ogeysiiyo teen waxa isla markii imaanaya booliiska oo marka booliiskii baa waxay noqonaysaa meeshii inay square ka qabtaan oo baaritaan ugu dhaqaaqaan marka baaritaankaas soo runtii waqti qaadan kara wuxuu ii sheegay chiefka marka takwiila police oo chief Bruce la yiraahdo marka uu ii sharxay waxaan dhan wuxuu yiri hadda runtii waayadii hore waqti dheer bay nagu qaadanaysay maxaa yeelay haday fatal car accident meesha ay wax ka dhacaan ama meel ay xabadi ka dhacdo kale meesha danta zoonka aan red tape ay saaraan oo ay isugu habar wacdaan oo ciidamo kala nooc ah degmooyinka xigta ka yimaadaan ba meeshaas muddo square inta laga qabto la baari jiray oo sawiro documentation all proof dhan laga qaadan jiray laakiin hadda wuxuu yiri barihii ugu dambeeyay waxa nagu soo kordhay sancooyinkan oo waxaanu awoodnaa oo qalabka markaa uu tusinayo unitka markaa aan gudaha u galnay oo aan arkay waxa meesha dhex yaala waa xafiis ordayaba oo socda isaga dhan oo admuleysida in la soo rarayba maxaan ku xafiiskii oo mobile kaas ah mobile unit intay qaataan bay meesha tagayaan marka rugtii waxa ka dhaceen markii ay meesha degaan bay drone wax loo yaqaan ay isticmaalayaan drone kaas marka meeshaas oo dhan sawirro uga soo qaadaya u soo record gareynayo angle kasta oo ay u baahnaayeen u sheegaya halkaasoo nin remote uu la fadhiyo oo marka uu controlayo marka waxa meesha aan ku arkay runtii waxay ahayd waxa runtii aan aad ula cajibay marka meesha drone-ka ay la tagaan waxa dhacaysa marka ugu horeysa baarista waxay baarayaan dhacdadii meesha ka dhacday war maxaa dhacay sidee wax u dhaceen yaa marqaati ka ah qoraal iyo documentation diiwaan gelin bay sameynayaan marka taa ay sameeyaan oo runtii cadaymihii goobta yaalay waqti dheer bay qaadan jirtay buu igu dhahay kolonyo gurmud baan u yeeran jirnay xarunta taliska guurtada ah oo marka uu yimid oo marka qalabkan oo muddo oo runtii xogaa lacaga ah waa gaari qalabka ku xiran ciid oo u dhan yihiin wixii qalabka ciidanka dhan oo u baahnaayeen haday noqon lahayd kombiyuutarada haday noqon lahayd xafiisya ku dhex yaala haday noqon lahayd isgaarsiintii TV-yada halkaas ay kala xiriiriyaan oo maxaan ku isgaarsiinta iyo waxa inta u sii dheeraaday inayba drone ku daraan oo iyana dul meegaaga oo maxal dhigi jiray saa dul meeraysta xarunti meeshii wax ka dhaceen oo xogta markaa uga keena angalla xitaa annaga inaan arki jirin oo markii hore barkay picture la haystaa qofka marka picture ma awoodi karo qofku inuu wax kasta ku ururiyo waxaana muhiima in aan
arrintaa dhacday aan documentation fiican inaan ka sameyno maxaa yeelay maxkamada iyo weligeed ma harayso documentationkaasana qasab ah annaga degmadayada wixii ka dhacay inaan saa u ilaalino marka wuxuu yidhi arrintan waxay noo sahashay dembi baaristii iyo sugidii amniga dadweynaheena ayay inoo sahashay marka wuu itusay droonkii meeshuu yaallaa wuxuu tusay remote-kii laga controlaye marka wuxuu yidhi hadda droonkan waxaan awood u leenahay haddee meel shil gaari ah ama xitaa dab uu meel ka dhaco sida ha tusaale ahaan marka bakaare mool uu dab ka dhacay oo kale waxyaalo badan runtii droonkaas uu kaa caawin karaa jirta oo meesha dabka uu yahay saldhigga dabka meesha dabka uu ku badan yahay halka u baahan in maxaan ku dibdimisku xooga saaro waxaasoo idilay ayay maxaan ku arrintaasi qaban karaysaa marka waa arrin runtii meesha dembi uu ka dhaco ama arrinay ka taagan tahay ama toogasho iyo argagixiso ay wax ka samaysa ama ismiidaaminay ka dhacday waxaasoo dhan buu droonka kan uu maxaan ku ka caawinaya dadka marka xataa wuxuu wax ka caawin karaa isku soo baxyada weyn ee sida mudaaharaad ha noqoto ama kuwo maxaan ku silmi ah oo loogu talagalay inay noqdaanin maxaa la dhihi jiray mudaaharaad nabadgeliyeed iyo kuwo rabshado wato isu bedelaba waxay noqonaysaa ma sameyn karaysa boqolaal askari ama dhexgelin kar dadkii marka laakiin drone xabad iyo labo oo dusha meegaarta oo sidaa u ilaalisa oo fiirisa marka dhaqdhaqaaqyada oo record garaysa oo live maxaan ku ugu xiran command centerka runtii waa arrin oo aan aad u jeclaan lahaana dhulkayagii in ay runtii haysan lahaayeen lacagtuna waxaan jeclahay inaysan saa u badnayn maxaa yeelay waxaa dhici karaysa hal wasiir ama hal qof oo wadankii jooga oo hantida jeebka gashtay in ay maxaan ku 100 drone noocan oo kale ay qaban lahayd xitaa waxyaalaha lagu qaban karo droonka kan surveillance-ga iyo baaritaanka joogtada ah ayuu sameyn karayaa marka eriyooyinka ay hotspot-ka ah sida baarlamaanka iyo garoomaha ciyaaraha iyo tiyaatarka iyo meelaha runtii badanaaba dhaqdhaqaaq uu badan yahay lana doonayo in amnigooda markasta la sugo waxay noqonaysaa in drone noocaas oo kale ah haddii uu ahaan lahaa mid mounted ah oo surveillance joogto ah iyo mid kaloo maxaa ku mobile ah oo unmanned vehicle ah oo runtii inexpensive ah marka loo fiiriyo faa'iidada uu u leeyahay dadka yaga waxaan hadal ku soo xirayaa xadiiskii nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yiri can abi hurayrata qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam alkalimatu alxikma daalatu lmu'min faxaythu wajadtuha fahuwa axaqu biha faxaythu wajadaha fahuwa axaqu biha taasoo macnaheedu yahay the word of wisdom is the lost property of the believer. Wherever he finds it, he is most deserving of it. marka waxaan idinkula dardaarmayaa haddii ay ra'yiga kan aan maantay shalay soo arkay uu asna sideeda oo kale adna uu ku xiisa gelinayo walaalow la wadaag cidda ay anfici karayso oo dhulkayagii ah ha noqdo maamul gobol ha noqdo maamul qaran iyo federaal iyo gobolada Soomaalidu ay dhulka Soomaalida ay ka taliyaan oo dhan ee galbeedka iyo NFD iyo Djibouti iyo meel kasta dadka iyagu ay ka faa'iidi karaan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.